markale iyo isku soo noqod wanaagsan halkani waa Zack Films fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqanayso channel-keenan waxaan ka codsanayaa mar koobaad iyo mar labaadba inaad subscribe saarto sidoo kalena muuqaalka aad like noo dhahdo aad iyo aad ayaad u mahadsantahay muuqaalkeena maanta waa mid South Korean ah oo lagu magacaabo Pipeline wuxuuna soo baxay sanadii 2021 filimka ayaana ku bilaabanaya iyadoo koox tuuga ah ay duleelinayaan tuubooyin waaweyn oo mara dhulka hoostiisa si ay ugala baxaan saliidda lacagna badanna ay ugu sameeyaan hogaamiyaha kooxdan oo lagu magacaabo Strow isagoo keenaya rag ku wanaagsan shaqadan mid ka mid ah shaqaalaha oo lagu magacaabo Jobse oo iska dhigaya inuu xirfad dheeri ah u leeyahay shaqadan ayaa loo dhiibay kadib markuu bilaabay shaqada wuxuu ku sababay dhuumaha inay dilaacaan meeshana waxaa ka dhacay qarax aad u weyn halka raggii kale ay goobta ka baxsadeen laakiin Jobse ayaa lugaha ka gubtay halka booliskana ay goobta soo gaareen taliya Mansi ayaa ka shakinaya in arrintani aysan ahayn shil isagoo caawimo ka dalbanaya saaxiibkiisa Sangu Strow ayaana ogaanaya in Daihan uu ka iibiyay qalab fake ah isagoo garaacaya Daihan ayaana dhankiisa la kulmayo Dolly waxaana goobta soo gaaraya Mansik iyo Sangu iyagoo ku amraya inay lugahooda tusaan iyagoona tusaya si bilaa cabsi ah dhanka kale Mansik iyo saaxiibkiisa ayaa bilaabaya inay baaritaan ku sameeyaan dhismayaasha ka dhow goobta waqti kadib Dolly ayaa la kulmaya Jongwoo oo ah madaxa shirkadda dayactirka saliidda isagoo ku amraya in shaqada lagu dhameeyo hal bil beddelkeedana la siin doono 1 milyan shaqada ayaana ka dhici doonta dhisme hotel hore ahaa hoostiisa Dolly ayaana madax u ah Mr. Na Jinsab Jobse iyo weliba counter oo inta shaqada lagu jira korka ilaalin doonto Strow ayaana inta kadib u imanaya isagoo ka socda Jongwoo wuxuuna u keenayaa qayb lacagtii lagu heshiiyay isagoona ka qaadaya dhammaan telefoonadooda kadib markii tiimkii ay qodeen in badan waxaa ka hor imanaya dhagax weyn si aan loo maqlin shanqarta xoogga leh ee hoos ka socota waxay muusig ka shidayaan qaybta sare dhanka kale Mansik iyo saaxiibkiisa oo weli wada baaritaankooda ayaa helaya goobta shaqadu ka socoto Sangu ayaana soo hubinaya gudaha hotelka isagoo arkaya counter waxayna baaqa u diraysaa tiimkeeda laakiin tiimka ayaanan maqlin sabab la xiriira fiilooyinka oo haleysnaa halka Sangu uu weydiinayo su'aalo badan kadib markii Sangu uu ka yar fogaaday counter ayaa soo qaadanaysa gacankeeda iyadoo u gudbinaysa fariinta tiimkeeda iyagoona isla markiiba qarinaya godka waxayna iska dhigayaan si kuwa nadiifinaya bulaacada hoose ee kale iyagoona khaldaya Mansik counter ayaana bilaabaysa inay hagaajiso fiilooyinka si kadis ah waxaa kusoo dumaya godka iyada iyo Junsa Strow ayaana u imanaya isagoo u hanjabaya wuxuuna siinayaa muddo 10 cisho ah si ay u soo gabagabeeyaan shaqada iyagoona jir dilaya Jobse maadaama uu isku dayay inuu ka baxsado halka booliska ay baaritaan adag ku hayaan intaa kadib tiimka ayaa baxsanaya si ay u caawiyaan Mr. Na balse Jobse ayaa jaajuusaya markay gaaraan hospitaalka Mr. Na xaaskiisii mar hore ayay geeriyootay waxayna go'aansanayaan inay dib ugu soo noqdaan Jobse ayaana ka haraya si uu lugtiisa iskaga daaweeyo Mr. Na iyo Dolly markay soo gaareen gudaha godka waxaa ku sugayay Strow iyo Jongwoo Mr. Na ayaana isku dayaya inuu u sharaxo xaaladda xaaskiisa balse Jongwoo ma ahan mid dhageysanaya isagoona laadxun ku dhufanaya Dolly ayaana isku dayaya inuu ka baxo heshiiska balse waxay ugu hanjabayaan inay waxyeeleyn doonaan hooyadiisa iyagoon doorasho kala haysanin waxay ku noqonayaan shaqadooda intay shaqada hayeen waxaa suuxaya Mr. Na Dolly iyo counter ayaana u kaxaynaya hospitaalka intii ay sii wadeen waxaa wadada u galaya ciidamada Strow iyagoona iska leexinaya nasiib darro waxaa goobta imanaya Jongwoo oo hubeysan Mr. Na ayaana la qabsanaya qoriga xabad ayaana caloosha kaga dhacaysa Jongwoo ayaana garabka xabad ugu dhufanaya Junsa Dolly ayaana isku dayaya inuu weeraro halka isagana xabad la laqsiinayo dhanka kale Mansik iyo Sangu ayaa soo gaaray hotelka halka Jongwoo iyo ciidamadiisa ay goobta ka baxeen Dolly ayaana ka badbaadaya xabadda maadaama aysan ku dhicin isaga oo ay ku dhacday saacad ugu jirtay jeebka isaga iyo counter ayaa caawinaya Jinsab waxayna ka baxsanayaan godka bulaacada tiimka ayaana dib u kulmay si ay u diyaariyaan qorshe adag iyagoona la galaya Jongwoo heshiis inuu bixiyo 5 milyan si shaqada loogu dhameeyo
kadib markay degeen qorshahooda. Jobsey ayaa u baxaya si uu ugu sheego qorshaha Strow. Dolly ayaana dabagalaya isagoona ku kalsoonayn, wuxuuna ogaanayaa inuu isaga ahaa midkii khiyaamay. Halka Mansic iyo saaxiibadiisa ay goobta joogeen iyagoona ceersanaya Dolly. Kadib markuu iska reebay booliska, wuxuu dhammaystirayaa shaqadiisa isagoo soo saaraya saliidda. Jinwoo ayaana diyaariyay raggii ka iibsan lahaa, halka Mansic saaxiibkiisa uu lug ka jabay. Mansic ayaana loo soo dirayaa sawirada goobta kadib markii Dolly iyo Jinwoo wada kulmeen. Jinwoo ayaa ka baxay heshiiska isagoona raggiisa ku amray inay dhammaystiraan Dolly iyo saaxiibadiisa. Laakiin Dolly iyo saaxiibadiisa ayay u suurtagelaysaa inay ka baxsadaan ragga, halka Mansic isna uu soo gaaray goobta. Ugu dambeyn, waxaa gacanta lagu dhigay Dolly iyo saaxiibadiisa iyo welibana Mansic. Jinwoo ayaana bilaabaya inuu buuxsado haamihiisa. Dhinaca kale, Dolly ayaa ku guuleystay inuu iska furo xarkaha ugu xirnaa gacmaha, isagoona bambadii ku xirnayd ku tuurayo meel ka fog iyaga. Sidoo kale, Jinwoo ayaa ban ku xiray goobta ay joogeen raggiisa iyo Strow si aysan ula qaybsan lacagta, balse markii uu qarxiyay haamaha waxa kaliya oo ay soo daayeen biyo. Waxaana la tusayaa intii uu socday dagaalka Jobsey inuu bedelay tuubada. Intaa kadib, kooxdu markay kasoo baxeen godka, waxaa goobta soo gaaray Jinwoo iyo raggiisa oo argudsi u socda, halka Mansic uu gurmad dalbaday. Sidoo kale, kooxda oo ku dadaalaysa inay isdifaacaan. Dolly ayaana garaacaya Jinwoo isagoo raba in uu dilo. Waxaa joojinaya Mansic halka gurmadkii ay soo gaareen. Qof walibana waa la xirayaa. 3 sano kadib, waxaan arkaynaa in Dolly saaxiibadiisa ay furteen dukaan iyaga ay leeyihiin. Maalin maalmaha ka mid ah, iyadoo Mansic uu soo booqday, wuxuu gudaha ku arkayaa iyagoo qodaya dhulka hoostiisa, waxaana meesha ka bilowday muran dhexdooda ah. Filimka ayaana intaas kusoo idlaaday. Waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa inaad soo gaartay dhamaadka muuqaalkeena. Waxaan markale kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saartid, haddii aad nagu cusub tahay sidoo kale aad subscribe saartid. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Waxay noo ballan muuqaalkan muuqaalka xiga.